Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdulaahi. Waxaan ka mid ahay ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Turkiga, gaar ahaan magaalada Ankara. Waxaan jeclaystay inaan soo gudbiyo mowduuc la xiriira waxbarashadayda. Waxaan ahay arday dhigta qaybta duulista rayidka Civil Aviation ee Jaamacadda Atlam University ee ku taala Ankara sanadkii labaad. qaybta aan ka dhigtana waxaa la yiraahdaa oo programkayga quseeya aircraft maintenance technician. Maintenancegu waliba qaybtiisa engine and airframe, matoorka iyo qalfoofka diyaaradda. Sidaa darteed waxaan rabaa maanta inaan sameeyo isku day ku saabsan inaan soo gudbiyo mawaadiic yaryar oo la xiriira aviationka. Aviation sidiisu wuxuu u kala qaybsamaa labo waaweyn oo ah civil aviation iyo military aviation. Civil aviationku waa qaybta duulista rayidka, militarygana waa qayb askarta u khaas ah. Civil aviationka ayaa wuxuu si kala qaybsamayaa qaybo kala duwan oo kala ah commercial aviation, qaybta ganacsiga la xiriirta, aerial work iyo general aviation. mid kasto waan u iman doonaa ayagoo la si kala qeexayo. Haddaba commercial aviationka ayaa wuxuu si kala qaybsamayaa isagana labo oo kala ah passenger transport and cargo transport, qayb qaada dadka iyo qayb cargoga ah oo ah badeecooyinka iyo wax la xiriira. aan u iman civil aviationka oo ah qaybtii koowaad. waxaa la yiraahdaa civil aviation diyaaradaha loo isticmaalo kala gudbinta waxa la xiriira civil aviation oo ah qaybta rayidka, qayb aan military ahayn, except not used for military purpose, aan loo isticmaalin wax military la xiriira ama ujeedooyin xagga militariga ciidamada u isticmaalaan. maxay yihiin kuwa military loo isticmaalo? waa howlaha la xiriira security-ga iyo ilaalinta border controlka xuduudaha. security amniga iyo waxaan la xiriira ilaalinta xuduudaha waa wax ay ku shaqo leeyihiin qaybta militariga. sidaa darteeda civilku ma soo galo qaybtaas. haddaba civil aviationka muxuu u kala qaybsamaa saddex qaybood oo ugu waaweyn: commercial aviation waa qaybta ganacsiga, aerial work iyo general aviation. qayb kasto waxay u kala qaybsamaysaa transportation. commercial aviation ko kala daan qeexno waa gudbinta ama transportationka passengerska dadka iyo cargo or post for a price, ama waxyaalo la soo gudbinayo sida postiyada waagii hore la isticmaali jiray oo kale. marka la gudbinayo haddii loo isticmaalo waxay soo galaysaa qaybtaas commercialka ah. aerial work iyadu maxay tahay? waa agriculture, badeecooyinka marka aviationka diyaaradaha yaryar oo loo isticmaalo inay hagaajiyaan ama ziraacaadka beeraha loo isticmaalo, construction dhismaha marka loo isticmaalo, photography marka sawir qaadida loo isticmaalo sida drone-ka yaryar, observation ilaalinta, search and advertising wax baaritaanada markay sameynayaan dadka, iyo sidoo kale xayeysiinada etc. iyo wixii lamid ah taas. general aviationku isagu waxa waa wixii ka soo haro labadaas qaybood. waxaan commercial loo isticmaalin aerial aan ahayn, qaabkaas waxay noqonayaan general aviation. haddaba aan u imaano basic terms of aviation, erebixinada basic ah ee aviationku leeyahay. vehicle waa aircraft or helicopter. aircraftiga waxa waa fixed wing, waxa kaga duwan yahay helicopterka waa baalashiisu ama wingiska waxa waaye kuwa dhaqdhaqaaqaya ma ahan, macnaha kuwa wareegaya oo isbedelaya sida helicopterka ma aha. sidaas darteed wax kasta oo fixed wing leh waa aircraft. police meesha aviationku positionkiisu waa airport, heliport. airport waa si guud oo diyaaradaha caadiga meesha ku soo degaan. heliport waa qayb ay ku soo degaan airport yar oo loogu talagalay inay ku soo degaan helicopterada.
park apron waxaa la yidhahdaa meesha aeroportka ka mid ah ee lagu baarkimo diyaaradaha etc. Services shaqooyinka aviationka laga qabto maxaa ka mid ah ticket sales iibinta tigidhyada, catering cunto siinta dadka diyaaradda saaran, sidoo kale cleaning nadaafadda, ground services shaqooyinka dhulka laga qabto diyaaraddu intay dhulka taallo, shaqooyinka la qabto sida pressurizing in diyaaradda muxuu ahaay la pressure gareeyo maadaama hawada sare markay diyaaraddu gasho ay adkaanayso qofka inuu oxygen qaato. sidaa darteeda pressurizingka wuxuu ka saacidayaa inay oxygentu yeelato mass ama cuf inay yeelato oo qofka uu neefsan karo. Aircraft operator howlwadeennada muxuu ahaay diyaaradda etc. Human resources waxaa ka mid ah human resourceska aviation kala xiriira technicians dadka muxuu ahaay xirfadyahanada oo muxuu ahaay howlaha qabanayo diyaaradda markay cilad ku imaato, cilad bixinta, checkiska sameynaya, waxaas dhan. Expert khubaro dhanka aviationka ah mar walba loo baahan yahay si loo sii horumariyo qaybta aviationka, civil aviationka. Pilotkii wadaya diyaaradda. Engineer waa ku takhasusay injineerka ciladaha iyo muxuu ahaay howlgelinta diyaarad kasta waa inay leedahay engineer ula socda. Cabin officer dadka ka shaqeeyo qaybta diyaaradda gudaheeda ah, tusaale ahaan marka diyaaradda ay kacdo dadka muxuu ahaay u adeega passengerska, dadkaasi waa cabin officers. Rules waxaa ka mid ah laws waxay leedahay aviationku wuxuu leeyahay qaanuuno la ilaaliyo iyo regulations. Politicals siyaasad u gaar ayay leedahay qaybta civil aviationku. Instructions la raaca ayay leedahay. Ruleskana waa iska regulationkaas. Establishment waxyaalaha asaasiga authority to operate the rules awood lagu maamulo muxuu ahaay ruleska waa inay yeelataa muxuu ahaay civil aviationku. Relevant ministry wasaaradda la xiriirta, tusaale ahaan wasaaradda duulista rayidka ama wasaaradda gaadiidka ayay soo hosgelaysaa. Marka waxay leedahay qayb u qaabilsan in service muxuu ahaay certified u noqdo qofka diyaarad kasta in la jeekimo inay ma howlgeli kartaa ma cilad bay keenaysaa, wax walbo waxay ku soconayaan qaab certified oo ah relevant ministry and authorities ay bixinayaan. Directorates operators maintenance organizations dadka ka shaqeeya diyaaradda macnaha waxyaalaha inay shaqeyso u sababta ah waxaa ka mid ah maintenance organizations, ground operations, airline companies, intaas bay soo galayaan. Others sidoo kale. Marka intaasi waa basic terms of aviation. International Civil Aviation Organizations organizationada ururada internationalka ah ee aviationku ay leedahay ICAO ayaa kow ka ah oo ayadu magacaaba leh. International Civil Aviation Organization waa International Civil Aviation Organization ururka duulista rayidka ee internationalka. IATA oo laga soo gaabiyay idana International Air Transport Association. FAA oo laga soo gaabiyay Federal Aviation Administration oo Mareykanku leeyahay. Saddexdaasiba waa international. FAA laftirkeeda iyadoo muxuu ahaay Mareykanka uu leeyahay haddana maadaama diyaaradaha ugu badan ay soo saaraan Airbus iyo Boeing, Airbusna ay tahay European, Boeingna ay tahay Mareykan, waxay saameynaysaa instructionadeeda waxay dhan international way. Marka sidaa darteeda ayaa iyadana loogu soo darayaa International Civil Aviation Organizations. International Civil Aviation Organization hore usoo sheegnay. European Aviation Safety Agency EASA ayaa la yiraahdaa. Waxay qaabilsan tahay in muxuu ahaay ay siiso laysanada bixiso sida technicianska. Imtixaano waxaa jira standard ah oo ay qaado wadamada Yurubna waa laga wada aqoonsan yahay. Kudigooda ayaa muxuu ahaay ku kulansan qaybtaas. European Civil Aviation Conference iyaduna waa organization jira oo European ku leeyihiin.
Federal Aviation Administration oo Mareykanka iska leh hore soo sheegay. Eurocontrol Europeanka ayaa iska leh, iyaduna waxay qaabilsan tahay controlka. Joint Aviation Authorities iyaduna Europeanka ayaa iska leh, waxayna qaabilsan tahay navigation security. Ururada caalamiga ay aasaaseen dowladaha stateska ayaa aasaasay. Aan u imaano International Aviation Organizations established by the civil sector. Ururada caalamiga ee civil aviationka oo ay aasaaseen civil sector. Civil sectorku waa sector qayb gooni ah qaabilsan. macnaha qaybtaas waxaa dowladaha ku kulansanaa, laakiin qaybtan waxaa urur waxaa aasaasay qayb aviationka qaabilsan adduunka ama wadan gooni ah. International Air Transportation Association IATA ayaa la yiraahdaa. Airports Council International ACI Association of European Airlines. qaybta koowaad wuxuu yahay roolka ama doorka International Civil Aviation Organizations ICAO ay ka mid tahay. roolkeedu muxuu yahay? ICAO roolkeedu muxuu yahay? The role of International Civil Aviation Organizations waxa waaye lagu aasaasay Chicago Convention, heshiiska Chicago, with its other name is a result of the Chicago Convention in 1944. Established on 7 December, waxaa la aasaasay 7 December 1944. waxaa aasaasay 52 wadan oo saxiixay heshiiska Chicago. ICAO waxay ka tirsaneyd muxuu ahaay United Nations qayb hoosaad ahayd laga soo bilaabo 4 Abriil 1947. ICAO main goal hadafka ugu weyn ee ICAO loo aasaasay muxuu yahay? Safety, increasing global civil aviation safety. in muxuu ahaay la siyaadiyo global civil aviation safety. Safety-gu iyo security farqiga u dhexeeya jira. Safety-ga waa wax ku saabsan damage inuu yimaado, waxyeello inay timaado ku saabsan qalabkii iyo dadka. waxaa tusaale ahaan shilalka oo kaleeto waxay la xiriiraan safety. Security ayagu waxaa la xiriira waxaa waaye waxa ku saabsan amni darrada, burcadda, waxyaalaha hubeysan in la afduubto tusaale ahaan ay la xiriirtaa security-ga. marka safety iyo security waa hadafyada loo aasaasay. Efficiency, increasing the efficiency of aviation, in tayo lahaato, waxtar lahaato. sidoo kaleeto ay ku jirtaa aviation inuu waxtar yeesho. Continuity, in sii socoto shaqadan aysan noqonin mid istaagta. muxuu ahaa ensuring the continuity of aviation operations, howlgallada aviationka inay sii socdaan aysan noqonin wax meel ku eg. The law rule, in muxuu ahaa sharcigu shaqeeyo. tusaale ahaan waxaa jiro space rule, aviation rules aa jiro. aviationka ruleska inaan la garab marin, dowladna aysan ku xadgudbi karin dowlad kale hawadeeda, airline aysan waxay rabta iska sameyn karin. in la ilaaliyo darteeda ayaa muxuu ahaay kamid ah goolasha muxuu ahaay aasaasay. aan u nimaano ICAO goals, the role of